بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuqul maraam min adilati alaxkaam magaciisa la yihaah ee uu qoray alimaam alxaafid axmed binu cali binu xajar alcasqalaaniyu ashaaficiyu almutawafa 852 markii laga joogay hijrada ee dhintay sheekha kitaabku qoray ayaan kusoo jirnay. buluuqul maraam waa kitaab ka hadlaya axaadiista ku soo aroortay axkaamta, maxaa xaaraama, maxaa waajiba, maxaa sunno ah, sidee loo tukadaa, sidee loo soomaa, sidee loo xajiyaa. axaadiisul axkaam waxaa la yidhaha ayuu kitaabkan ayuu ka hadlaya. waa kitaab aada iyo aada muhiim u ah. sheekha qoreyna de waa sheekha fatxulbaariga sharxiisa iskale ee caanka ah ibnu xajar sheikhul islaam ayaa iskale. marka isagii ayaan halkii kasii wadayna. wuxuu yihi sheekhu baabu sutrati lmusallii, qofka tukanaya sutradiisa waxa uu isku asturayo. yacni qofku markuu tukanayo sida inoo soo socota waxaa sunnaa markuu matalan tukanayo derbi oo kale inuu isku qumiyo isku aadiyo, hadduuna helaynin tiir oo kale, labada waa isku mid, tiirka iyo derbigu. hadduu waayo labada midna, hadday suurtagal tahay inuu ul oo kale meel taki oo kale hadduu wato inuu meel qotonsado, hadduuna helaynin sajaayad oo kale inuu fidsado sidii sajaayadda waxa ka dambeeya dadku ay u maraan, hadduuna helaynin inuu meel sidaa u xariiqdo si aan inta aan loogu soo marinoo salaada looga sahway. marka axaadiidta inoo sheega sutra taasaa la yidhaah, waxa uu isku aadinaya qofka tukanaya derbiga ama tiirka ama takida uu qotonsaday meesha ayaa la yidhaah. baabu sutrati lmusallii, qofka tukanaya sutradiisa baabkii ka hadlaya weeye. marka waxaan uga hadli doonaa insha allah sutradu xukunkeedu maa maxay, qofka hormaraya xukunkiisu muxuu yahay, qofka celintiisa oo layska celiyo hortaada maraya xukunkiisu muxuu yahay, sutrada nafteeda shuruuda ay leedahay. qaababkaas ayaan uga hadli doonaa oo axaadiistuna ay uga hadli doontaa insha allah. can abi juhaymin bin alxaarith radia allaahu canhu, saxaabigaa waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, suubanuhu wuxuu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, low yaclamu lmaaru, qofka maraya hadduu ogyahay, ruuxa maraya hadduu ogyahay, beyna yadayi lmusallii, ruuxa tukanaya hortiisa ka maraya hadduu ogyahay maadaa calayhi waxa dushiisa oo min al ithmi dembi ah, lakaana wuxuu ahaan lahaa an yaqifa inuu istaago 40 khayran tii ay uga khayr badan tahay lahu isaga min an yamura inuu maro beyna yadayhi hortiisa. muttafaqun calayhi, xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyo oo isku waafaqay. wallafdu lilbukhaariyi, lafdigana waxaa iskale bukhaariga. wawaqaca waxaa dhacay fi bazaar waxaa dhaco uu wariyey min wajhin aakhara 40 khariifan 40 sano. khariif yani waa dayrta, laakiin 40 sano yani ka dhigan tahay 40daas sidaas yani loo cadeeyo 40 sano. inuu 40 sano taagnaado ayaa uga khayr badnaan lahayd inuu qofka hortiisa maro. marka ugu horeysa xadiidka haddaan eegna alfaadiisa, beyna yadayi lmusallii baa layidhi, low yaclamu lmaaru beyna yadayi lmusalli, qofka tukanaya labadiisa gacmood hortooda suu yahay haddaan fasirno. yadayi lmusalli yacni yadayni bay ahayd, markii musalliga loo idaafeeyey ayaa nuuntii la jaray. waa muthane yani tathniya labo. yadayni beyna yadayi lmusalli, ka tukanaya labadiisa gacmood hortooda. xadiidku saas oo cabiray, laakiin ujeedadu ma maxay, qofka tukanaya hortiisa. ujeedadu yani labada gacmood lagama wadee
يعني waxa weeye waa min tacbiiri اljuz'i wa iraadati اlkulli. laba gacmood baa la cabiray bayna yaday lmusalli, ka tukanaya labadiisa gacmood hortooda baa layidhi. laakiin maxaa loo jeedaa ka tukanaya hortiisa, qofka tukanaya hortiisa saasaa loo jeedaa, bimacnaa amaama almusalli. bayna yaday lmusalli bimacnaa amaama almusalli, qofka tukanaya hortiisa. maxaa loo cabiray oo labada gacmood loo cabiray? inta badan ruuxu wuxuu uu samaynayo wuxuu gacmaha ayuu ka qabtaa, saa darteed baa gacmaha loo cabiray. laakiin waxaa loo jeedaa amaama almusalli ayaa loo jeedaa oo meel u dhow ah. maadaa calayhi min alithmi, ziyaadadaas fatxulbaariga wuxuu ku yidhi laysat haadihi ziyaadatu. ibn xajar casqalaani markuu xadiidka sharxaya, inta badan axaadiisteenan markaan buluuqulmaraamka ka hadlayno, xadiidka hadduu bukhaari wariyey sharxa bukhaari baan soo qaadanaynaa. maxaa yeelay iyadoo sharxii bukhaari uu jiro, wadaad waayahan dambe wax qorqoray dee inaad ku baydhbaydhaba maba aha. hadduu uu muslim wariyeyna sharaxa saxiixulmuslimka ayaan kasoo qaadanaynaa sharaxa, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. haddii ay sunanku wariyeenna ragga muctabarka ah ee sunanka sharxay sida khataabi oo kaleo macaalimul sunan kitaabkiisa oo kaliyo ayaan kasoo qaadanaynaa inta badan. marka aada iyo aad buu muhim u yahay sharaxan, yani aan sharxayna ma aha waxaan meelahan dhadhow kasoo qaadnaye, waa waxa ay culimada muctabarka ee wax kasoo qaad kale sharaxoodii weeye, sidaa la soo. marka ibnu xajarku fatxulbaari wuxuu ku yidhi markuu xadiidka sharxayay, ziyaadadaasoo maadaa calayhi min alithmi, ziyaadadaasi laysat haadihi ziyaadatu fi shayin min alriwaayaati. sheekha la yidhaahdo kushmeyhani oo ragga bukhaariga wariye kamida, riwaayadiisu unbay ku jirtaa buuri. min alithmidaasi kushmeyhani unbaa sheegay ee ragga kale la wariyay kitaabka bukhaariga min alithmi mayna sheegin. walaysat haadihi ziyaadatu fi shayin min alriwaayaati cinda gayri, laakiin waa maqbuul oo dee waa asax weya. marka xadiidka maxaa ku jira? low yaclamu lmaaru bayna yaday lmusalli maadaa calayhi min alithmi lakaana an yaqifa 40 khayra lahu min an yamura bayna yadayhi. an yaqifa 40 baa layidhi, bimacnaa qofka maraya, qofka tukanaya hortiisa hadduu ogyahay dembiga kasoo gaadhaya maridaa iyada ah, maridaa iyada ah dembiga kasoo gaadhaya hadduu ogyahay, wuxuu dooran lahaa inuu 40 sano muddadaa iyada inuu taagnaado si dembigaasi uuna usoo gaadhin, hadduu ogyahay dembigaa weynadiisa. xadiidka macnihiisu waa sidaa weyn, taas yani ayaa uga khayr badnaan lahay. xagga carabiya khayranta maxaa lagu nasbinayaa? lakaana an yaqifa 40 khayran. taas khayran haddii la yidhaahdo oo sida riwaayooyinku ay wariyeen khayran la yidhahdo, sida hadda inagu baan akhriyayno, waxaa weeye waa khabaru kaana. lakaana an yaqifa, oo an yaqifadaas masderka meeshaa laga dhalaalinayo, lakaana wuquufuhu khayran lahu. an yaqifadaas waa kaanada ismigeedii, khayranna waa khabarkeedii. xagga naxwada hadaad yani aad wax ka garanayso, haddii la nasbiyo khayran la yidhaah waa khabaru kaana. an yaqifadaana waa dee ismigeedii ayay noqonaysaa. riwaayooyinka qaarkood sida tirmidi riwaayadiis oo kale ayaa waxay warinayaan lakaana an yaqifa 40 khayrun lahu, oo khayrun taayay godayaan. marka icraabteeduna markaa wuxuu noqonayaa ismu kaana ayaa laga dhigayaa, khabaru kaanana waxa ka horeeya yani ayaa laga dhigayaa, oo waxay noqonaysaa lakaana khayrun lahu an yaqifa 40. oo khayrun taasa markaa ismu kaana ayaa laga dhigaya haddii la godo oo la raaco riwaayada godaysa, yani haddii la raaco. oo maxaa u cunansiiyey? ilan kaana waa nawaasikhu lmubtada walkhabar. marka ismigeedu asalkiisa hore ilan mubtadu ahaa, mubtaduhuna nakira ma noqdo ilaa wax u cunansiiye oo musawiq min almusawiqaat inuu helo mooyeen xagga naxwada. marka haddaan dhahna khayrun, riwaayada haddaan raacno waa kaanada ismigeedii, ila waka waa mubtade ka dhiganta, waa asalkiisii mubtadu ahaa kaanadu intayna gelin. marka waxaa u cunansiiyey marka allahuma salli calaa muxamed nakiro mawsuufo ah marka ayay noqonaysaa. nakiro mawsuufo ah sidaas yani ayay yidhaahdeen. xadiidka marka alfaadiisii
sharxeedii haddaan intaa aan ku dayna xagga xukunkiisa haddaan u kacno xadiidkan waxaa laga qaadanayaa oo ina tusinayaa qofka tukanaya hortiisa in la maro inayna bannaanayn oo ay xaaraam tahay ayaa laga qaadanaya. laakiin sida axaadiid inoo soo socota ay sheegayso shuruud baa la shardiyaa ee qof kastoo tukanaya hortiisa in la maro xaaraan ma aha. ayib shuruuddaa marka maxaa ka mid a? shuruuddaa waxaa ka mid a kow waxa uu isku asturaya inuu yahay derbi ama tiir. hadduu labadaa waayo, labada iyagu waa isku mid, la kala dooran maayo tiirka iyo derbiga. labadaa hadduu waayo in ul uu meel qotonsado, marka usha qotonsigeeda takida waxay sutro noqonaysaa markii labadaa kale ayna u fududayn. ama labada hadday u fudud yihiin oo ul uu meel qotonsado ama kursi uu meel dhigto iyadoo labadaasi ay u fudud yihiin, marka wax kasoo qaad male, waa kala cadam oo kale, oo haddii la hormaro waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay wax dembiya markaa ma laha. marka derbiga iyo tiirku labada iyagu waa isku darajo, laakiin labada markii ayna u fududayn ayaa wixii kale ayay imanayaan oo ah ushii la qotonsaynayay ama kursi oo kale meel dhigato, iyo sajaayadiina iyaduna way kasii dambaysaa. sajaayadii haddii la waayana dhulka inuu xariiqdo hadday suurtagal tahay. oo xariiqi sidee weeye? dhulka laba mid inuu sidaa cardi inuu u xariiqo hortiisa, oo deedna xariiqa iyo isaga inta udhexaysa ayaa sutro u ah, iyo inuu dheerar u xariiqo oo dhinaca midigta iyo bidixda ku doono uu iska mariyo sidaa uu u xariiqo, deedna xariiqa afkiisa ayaa sutro yacna ayaa u noqonay. kow sutradii waa in la helo oo tilmaamaha aan sheegnayla sidaana u kala horeysa oo tartiibtaa la ilaaliyo. ama tartiibta hadduuna ilaalinin waa kala cadam oo kale. marka sajaayadii la fidsadoo kale waxaa noqonaysa hadda sajaayadahan calaamadsan ee lagu tukada masaajida dhexdooda ee safafka la calaamadeeyey, hadduu mid ku istaago dee taa uu ku taagan yahay iyo ta kale ee kasoo horjeeda intaas yacni ayaa sutro u ah, ama waxa ka dambeeya shaqo kumale yani ayay ka dhigantay. shardiga koobaad sutrada oo shuruudaa leh waa in la helo. laba waa inuu u dhow yahay sutrada oo uuna ka fogeyn 3 dhudhun oo dhudhunka aadamiga ah, waa inuuna ka fogeyn, waa inuu sutrada uu u jiro 3 dhudhun ama wax ka yar waa inuu u jiro. xagee laga xisaabinaya? culimada shaaficiyadu halka way isku khilaafeen. yacni 3 sheekh ayaa shaaficiyada fatwada la cuskadaa oo minhaajka sharxay. ibnu xajar casqalaani oo ibnu xajar haytami oo tuxfaha iska leh, iyo nihaayada sheekha le iyo sheekha muqniga leh. 3daa sheekh ayaa inta badan sharxa minhaajka sharxay ayaa fatwadooda la qaataa. marka halka way isku khilaafeen. ibnu xajar haytami oo tuxfaha leh wuxuu yidhi waxaa laga xisaabinayaa sutrada cidhbaha qofkan taagan cidhibtiisa ilaa sajaayadan uu fidsaday ama tiirkan uu qaabilay ama derbiga uu sutrada ka dhigtay, cidhibtiisa ilaa derbiga waa inuu u jira 3 dhudhun oo dhudhunka aadamiga marka cidhibtiisa laga tiriyo. ama haddii 3 dhudhun ka badan uu u jiro oo 4 dhudhun derbiga uu u jira marka cidhibtiisa laga soo tiriyo, markaa sutro uma aha, hortiisa waa la iska mari karaa, shaqo kuma. labada sheekhee kale waxay yidhaahdeen farahiisa markuu lugta dhulka saa u dhigo farahan ayaa laga tirinayaa 3 dhudhun. marka faraha ilaa meeshan uu xadaystay ee derbiga ah ama tiirka ah ama ushan uu qotonsaday 3 dhudhun hadduu u jiro sutray u tahay. 3 dhudhun laakiin hadduuna u jirinna waxba isuma ah oo waa la mari karaa oo muu celin karo. saas yacni culimada shaaficiyada labadaasay isugu khilaafeen. almuhim maxaa la isku waafaqsan yahay 3 dhudhun inuuna uga fogeyn, haddii kale dee sutro uma aha, loo nisbayn maayo ee ka dhigan tahay oo dhudhunka aadamiga ama cidhibta ka tiri ama faraha ka tiri, sida sheekhiyo isku khilaafeen. waxaana fiican cidhibta kuwa ka tirinaya ibnu xajar asqalaani ibnu xajar haytami raxmatullaahi tacaala caleyh. shardiga 3aad sutradan uu dhigtay waa inay dhulka kor uga kacsan tahay allahuma salli calaa maxamed thuluthay diraacin. dhudhunkan aadamiga oo 3 meelood loo dhigay labadii, yani waxa weeyaan waxay yidhaahdaan maaragtay dhudhunka ushiisa intan usha ah ee dhudhunka intiisan usha ah intaa waa inay dhulka kor uga kacsan tahay sutradu. ama hadduu wax dhantaa ka yar uu dhigo
أحاديث الدمانة كقادنا إن النبي مؤخرة الرحل أيو كحدي وينوس وسعتا مركا هدي لودن صدح ميل الله دغاي لبدي waa intan u shacaweeye ilaa dhudhunkii waa intan kulli intan oo dhan baa dhudhunkii noqonaysa marka thuluthay diraacin dhudhun 3 meelood loo dhigay labadii waa inay dhulka kor uga kacsan tahay waxa sutrada uu ka dhigtay ama hadayna kor uga kacsanayna wax ka yar uu sutra ka dhigto sutra la'aan yaana ay ka dhigan tahay laakiin de sajaayadu kuma jirto haduu sajaayad fitsado sajaayada afkeeda ilaa intaas sutra waa laakiin sajaayada wixii ka dambeeya waa iska mari kartaa safka markuu tukanayo safka laynankan safka laynka uu taagan yahay iyo laynka ka soo horjeedo sutrada u ah inta ayaa sutra u ah laakiin laynka wixii ka dambeeya waad mari kartaa wax shaqo uu ku leeyahay ma jiro laakiin hadii ay tahay dhulkii la xariiqay iyo sajaayada labada hadayna ahayn ee saddexda kale oo darbigi tiirki iyo wixii la qotonsanayay kale sida ushiyo kale sida kursigi waxa noocaas thuluthay diraacin waa inuu dhulka kor uga kacsan yahay ama wax yaro bakeer shay ku cabay hortiisa haduu saa u dhigto kaasoo kale sutra ma noqonayo طيب اللهم صل على taana waa shardiga saddexaad oo hortiisa la iska mari karo shardiga afraad waxa weeyaan istaaga uu meeshan istaagay qofkan tukanaya waa inuuna gabood fal lagu tirinaynin yaani waa inuuna gabood falin bimaana haduu istaaga wada dhaxdeedo kale oo dadku ay marayaan marka wuxuu doona hadhigtay waa la iska maraya maxay yeelay isaga taqsiir sameeyay wadadan dadku dhan bay ka dhaxaysay meel wado oo la marayo oo kale midalan ayuu istaagay marka waxay noqonaysaa ama meehe sajaayadan uu ku taagan yahay ayaa mid soo dhacay oo isaga milkigiisaba ma aha taana iyadana waxa weeye wax sutro ay u tahay sajaayadu soo dhacay ama darbigan uu qaabilay ayaa maaragtay yaan isagu una lahayn oo mid u dhacaya oo aan idan loo siinin taasoo kale marka sutradu muqassir waa inuu ahayn qof gabood tale qofkan isaga ama Allahumma salli ala Muhammad sutrada nafteeda waa inuuna gabood fal ku gelin oo maxaa noqonaya midalan haweenay buu sutra ka dhigtay hortiisa haweenay oo xijaaban baa ka soo qaad ayuu sutra ka dhigtay taana iyadana ma fiicno maxaa yeelay sutrada waxa loo dhiganayo salaada khushuuceedi inuuna tagin oo waxan hortaada maraya salaada khushuuceedi una ka tagsiinin ujeedadu weey marka hadii haweenay aad qabtayba ha noqoto haday doontay marka hortaada dhigato de waxa weeye khushuuci meesha uu xumaanaya qalbigiiba xagga aaday ama ma nin buu sutra ka dhigtay laakiin uu soo qaabilsan yahay ninka wajigiisa saa u soo qaabilsan oo saa u eegay taana de salaadii buu ka shaqlinaya ama haduu sii jeedo oo nin tukanayo kale midna ayuu sutra ka dhigtay ama safki ka horeeyo kale ayuu sutra ka dhigtay taas sutra uu noqonaya oo safka ka horeeya ayaa sutra u ah inkastoo masalada khilaaf bayna al-mashaayikh yaani uu ku jiro laakiin ala al-aqal sida ibn Hajar Haytami tuhfaha uu ku qoray safka ka horeeya safka ka horeeya sutra ayaa u ah oo in la kala dhaxmaro ma banaano ilaa hal mar mooyee hadii safka hore meel ka banaan tahay ama safka ka sii horeeya meel ka banaan tahay marka qofku intuu iska dhaxmaro kuwan ama hortooda intuu saa u soo maro meesha banaan uu gali kara maxay yeelay waa muqassiriin way gabood faleen oo waxay ahayn khalad bay sameeyeen marka inuu hormaro yaani uu heli karayo shanta shardi aan sheegnay meeshii sutra inay jirto darajooyin kale derbi tiir ul sajaayad iyo dhul xariiqdo sida u kala horeeyo sutra inay meeshii jirto in saddex dhudhunuuna uga fogeyn sutrada madaxeeda ayaa laga wadaa sutradu meeshay ku dhamaatay isaga saddex dhudhunuuna uga fogeyn ciribtiisu inay u kala fogeyn inay kor dhulka uga kacsan tahay saddex dhudhun hadii ay saddexda hore tahay derbi tiir iyo wixii kale sida ushii la qotaminay saddexda ama sajaayada iyo dhulkii la xariiqanayay sajaayadahan hadda safafka la calaamadii kuwaas uma baahna inay dhulka kor uga kacsanaadaan iyo shardiga saddexaad oo ah shardiga afraad oo ah inuuna gabood falin taagnidan uu taagan yahay oo meel ayna ahayn midalan dariiqo kale ama ayna ahayn midalan kacbada meesha dadku dawaafaan oo kale meeshaas oo kale ayna ahayn ama meeshaas oo kale haday tay hortiisa waa la iska maraya waa muqassir way iyo sutrada nafteeda inaan taqsiir lagu tirinaynin oo mid salaada qofka halmaansiinaysa sida haweeneydii oo kale iyo qofku soo dhowrayo saas oo kale iyo in shuruudahaas waa shuruuda sutrada markii la helo maxaa ka dhalanaya waxa ka dhalanaya sunnadii ood samaysay ood qaabishay sutradii hal la qaabila la yiri ahadiista soo socota inuu sheegayso
laba qofka hortaada marayo xaaraan ay ka tahay inuu maro sida xadiidkan inuu sheegayo. saddex inaad iska celiso sida axaadiista inoo soo socota ay sheegayso oo si latiif oo tartiib aad isaga celisa inay bannaan tahay. saddexdaas ayaa ka dhalanaysa inaad sunnadii la timid, in hortaada in la mara ay xaaraan tahay, in qofka hortaada maraya aad iska celin karayso ayaa markaa saddexdaas yani ayaa ka dhalanaysaa. marka xadiidkan shuruudaha lagama wada qaadanayo, laakiin low yaclamu lmaaru bayna yadayi lmusalli, musalligaasi waxay ka dhigan tahay bayna yadayi lmusalli kii tukanayay ila sutrati almustawfiyati lishuruudi, sutradii wixii laysku asturay oo shuruudii oo dhan dhammaystiratay kii yani u tukanayay hortiisa in la maro saasuu macnihii yani ka dhigan. hal maraan kugu celiyo xadiidka tafsiirkiisa. can abi juhaymin waxaa laga wariyey bin الxاarث radي الله canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam, suubanuhu wuxuu yihi low yaclamu lmaaru ka maraya hadduu og yahay bayna yadayi lmusalii qofka tukanaya oo sutro u tukanaya ee ma aha qof kastoo tukanaya maaha, bayna ama dee meel ka yaro fog sutradiisa oo hor 3 dhudhun uga fog haddaad marta ma aha, yani axaadiista soo socota yani ayaa sharxaysa. low yaclamu lmaaru bayna yadayi lmusalii hadduu og yahay maadaa calayhi waxa dushiisa ah oo min alithmi dembi ah, lakaana waxaa ahaan lahaa an yaqifa inuu istaaga 40 khayran tii ay uga khayr badan tahay lahu isaga min an yamura inuu maro bayna yadayhi hortiisa. mutafaqun calayhi, xadiidka bukhaariya muslim baa wari. walafdu lilbukhaariyi, lafdiga bukhaari baa iskale xadiidka haddaad doonaysa alfaadiisa inaad ogaato sharxeeda. wawaqaca waxaa dhacay fi lbazaar oo uu wariyey min wajhin aakhara wej kaloo wejkan aan ahayn 40 khariifan buu wariyey 40 dayrood bimacnaa 40 sano inuu istaagaa uga khayr badnaan lahayd inuu hortiisa maro. marka taa ayaa fasiraysa xadiidkan. xadiidkani ma sheegin tiro, ma sheegin 40adu waxay tahay, ma 40 saacadoodba, ma 40 maalmoodba, ma 40 sana, xadiidkani ma sheegin. laakiin kaas yani ayaa sheegayoo 40 khariifan yani 40ku inuu 40 sano yahay, kaas yani ayaa inuu cadeeyo sheegay. allahuma salli calaa muxamed wacalaa ali muxamed. wacan caaishata radia allaahu canha, caaisha waxaa laga wariyey ilaahay raalliha ka noqday qaalat inay tidhi su-ila rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, nabiga waxaa la weydiiyey fii ghaswati tabuuka isagoo jooga duulaankii tabuuka, can sutrati lmusalli, musalliga qofka tukanaya waxaanuu isku asturayo ayaa la weydiiyey. faqaala nabigu wuxuu yidhi mithlu mukhirati raxli, yani hamsada god mithlu mukhirati raxli, raxliga xaggiisa dambe. raxliga waxaa loo jeedaa kabaalaha iska dhehada, maalan marka oo la saaran yahay awrka oo kale waxaa jira wax carabta ay ku fuulaan oo af soomaaliga dee maxaan dhahnaa wax yaroo inagu len geela ma fuulo, laakiin wax sida faraska kooraa la yidhaha waxa la saaro. laakiin geela oo kale wax sida koorahoo kale oo kabaalo ah, 2 kabaaloo saa laysu weydaariyo xagga dambe ah iyo 2 kabaaloo saasoo kaleo xagga hore ah iyo meeshii dhexda ahaydoo lagu fadhiisanayay. marka 2daa tiiree xagga dambe ee dhabarka saa loo saarayo, taas yani ayuu nabigu ku shabahay sutrigu in intaasoo kale calal aqal ay noqoto. marka halkaa qiyaasta culimadu markay qiyaaseen waxaa la yidhi thuluthay diraacin, dhudhunkan oo 3 meelood loo qeybiyey labadii, bimacnaa intaa usha ah, intaa usha ee dhudhunka intiisaa usha oo aan lagu darin intaa kale faraha ah, waa inayna ka yarayn ayuu yihi nabigu alay sl. waa meeshii oo shardiga waa inagii lahayn thuluthay diraacin, halkana culimadu ka qaateen. faqaala nabigu wuxuu yihi sutradu mithlu mukhirati raxli, raxliga bimacnaa rarka neefka saaran xaggiisa dambe 2 kabaalee dambe intaa in la eg wey. marka waana dee wax yar weeyaan, yani saas culimadu ku qiyaaseen. akhrajahu muslim baa xadiidkan wariyey. markuu muslim uu fasirayey mukhiradaas wuxuu yihi hiya alcuudu alladii fii aakhiri raxli, waxa weeyaan qoriga khashabka ama tiirka oo raxliga xaggiisa dambe ee dhabarka uu saa u saarayo qofku. xadiidkan marka maxaa laga qaadanayaa? kow, sutradu inay sunno tahay waa laga qaadan.
waxaa kaloo laynoo cadeeyey sutrada inta ugu yar thuluthay diraacin dhudhun 3 meelood loo dhigay labadii inay tahay, xagga dheerarka qadrigeedu inuu yahay, shay walbana ay noqonayso. xagga shayga lama xadidin, ma shay dhuubanba ma shay ballaadhanba, yani lama xadidin, laakiin dheerarkiiba waxaa la yidhi mu'khirati raxli, waa inay dhulka kor uga kacsan tahay, laakiin waxay doontay noqon kartaa. saas yani culimadu ayay yidhaahdeen. allahuma salli alay. laakiin imaamu maalik isagu wuxuu shardiyey dhumucdiisu yani rumxi waranka oo kale, waranka dhumucdiisaoo kale waa inuu leeyahay, wax waranka dhumucdiisa ushan ka dhuuban taa yani ma noqonayso yidhi imaamu maalik. laakiin culimada kale maxay qabaan wax kasta irtifaaca kor u kacsanaanta unbaa inuu intaa yahay la shardiyaa, laakiin inuu dhuuban yahay iyo inuu ballaadhan yahay shardi ma kale leh oo lama xadaynin ayay culimadu yani ayay yidhaahdeen. xikmadu maxay tahay sutrada ku jirta? xikmadu waxa weeye qofku inuuna eegin waxaanuu isku asturaya waxa ka dambeeya inuuna eegin, oo eegidiisu intan ay ku koobnaato, deedna si khushuuciisii yani uu dhammaystirmo. sidaas yani weeyaan. allahuma marka shuruudii hore aan usoo sheegnay, xadiidkii hore ayaan sharxii kusoo sheegnay oo ahaa inuu 3 dhudhun uuna uga fogeyn, thuluthay diraacin inay dhulka kor uga kacsan tahay, derbi ama tiir labada waa isku mid, hadduu waayo inuu ul qotansado, hadduu waayo inuu sajaayadoo kale uu fidsado, hadduu waayo inuu dhulka saa u xariiqdo, yani intaasoo darajo. waxaa noqonaysa dhagaxyaan yaryar hortiisa uu dhigto oo kale, haddii wax kale uu waayo yani inay saa u kala horeeyaan yani ayaan soo marnay, iyo shuruudii yani loo shardinaya xadiidkii hore ayaan kusoo sheegnay. وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو يري ليستتر هايس أستر أحدكم متكين في صلاته سلاديسة ولو بسهم لي بهالنغضو أما فلات وساء قتم يهرتيس بهالنغضي وحيسكو أستر أبو النبي عليه الصلاة والسلام. أخرجه الحاكم حاكم بحديث كان وريي. طيب marka imaam nawawi markuu xadiidkii hore uu sharxay wuxuu yidhi wayaxsulu biayi shayin aqaamahu bayna yadayhi. nabigu wuxuu yihi liyastatir axadukum fi salaatihi walow bisahmin. marka shay walba wuu noqon karaa, laakiin imaam maalik muxuu shardiyay sidii hore aanu sheegnay in khilad bimacnaa dhumucdiisu waxaanu qotaminayo yani inuu yahay rumxi yani waranka dhumucdiisa oo kale inuu yahay ayuu isagu yani ayuu shardiyey. laakiin xadiidkan baa wuxuu daliil u noqonayaa shaaficiyada iyo wixii la jira oo wax kasta inuu noqon karo. maxaa yeele nabigu muxuu yihi walow bisahmin, yani leeb oo kaleo sidaa leebku dee uu dhuuban yahay leeb oo kale. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أبي ذر waxaa laga wariyay saxaabiga inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam suubanuhu wuxuu yidhi yaqdacu waxaa gooyo oo burinaya salaata arajuli ninka salaadiisa, yaqdacu dhahada burin ha odhanin, yaqdacu waxaa goynaya oo khushuucii yaraynaya salaata arajuli ninka salaadiisa almuslimi ee muslimka ah idaa lam yakun hadduun ahayn bayna yadayhi hortiisa mithlu mu'khirati raxli, yacni rarka kabaalihiisoo qeybtiisa dambe haddii hortiisa taasoo kale ayn ahayn, almar'atu ayaa goynaya salaadii oo khushuuci ka yaraynay, walximaaru dameerkii hortiisa marayay, walkalbu laswadu iyo aygii madooba. alxadiitha iqra'i lxadiid ama akmil ilxadiid, xadiidka dhammaystir oo meeshu ku qoran yahay u raadso, in yar baan anigu ka soo qaaday. wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka alkalbu laswadu shaydaanun, ayga madoobi waa shaydaan. akhrajahu waxaa wariyey xadiidkan oo soo saaray muslimun, walahu weli muslim, damiirka muslim u celi, muslim waxaa u sugnaaday xadiidkii hore abi dar baa wariyey nabiga ka wariyey, can abi hurayrata wuxuu ka wariyey oo u sugnaaday muslim naxwuhu kanoo kale duuna alkalbi, laakiin abu hurayra ayga ma sheegin, alkalbudaas yani muuna ku darin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني كلبك مؤونة كدار دون الكلب. ولأبي داود وحا أسقنادي
iyo والنسائي أبي داود iyo النسائي اللهم صل على محمد وعلى آله ولأبي داود marka meeshan muxuu yiri sheekhu walahu can abi hurayrata naxwu duuna alkalbi laakiin muslim xadiidkaas wuxuu u qorayaa yaqdacu salaata almar'atu walximaaru walkalbu wayaqi dalika mithlu mu'khirati raxli yani ayuu u qorayaa laakiin buluuqulmaraamka maxaa ku taala inuu yidhi allahuma salli calaa muxamed duuna alkalbi inuu yidhi laakiin saasaa saxiixulmuslimka yani yaa ku taala haddaad u noqoto 511 lambarka xadiidkiisu iyo haddaad u noqoto saxiixulmuslimka ولأبي داود والنسائي شرح حديث كان ونصر نقننا ولأبي داود والنسائي اسل حديث كان عن ابن عباس رضي الله عنهما وحيكوري نحو حديث كاسو كلا دون آخره آخر كيس لكن ما ينقدرين آخر يعني وجهه حديث كأبي ذر آخر كيسو وفيه الكلب الأسود الشيطان الكلب الأسود الشيطان انت سأقدم بيس حديث كأبي ذر مركا انت ما ينقدرين أبي داود هي النسائي ابن عباس وحي كوري نحوه حديث كأبي ذر أو كلا دون آخره ضميرك عقيد وعلين حديث كأبي ذر وعلي لأن استقع أصل هاي أبي ذر حديث كيس وقيد وحوك قيدي المرأة بالحائض أيوك قيدي أبو داود مركو ورينيه وحو هوين ايدك قيد حائض وحو يري يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب haweenayda caadada leh iyo aygu hadday ku hormaraan salaadii way goynayaan laakiin aakhirka ma ayna ku darin طيب xadiidka aan usoo noqono marka xadiidkan macnihiisa culimadu waa isku khilaafeen culimada qaarkood waxay yidhaahdeen ashiyaadaa la sheegay hadday ku hormaraan salaadii way kaa burinayaan oo maxaa la sheegay almar'atu walximaaru walkalbu alaswad يعني هويني هذو تكني هذا كهور مرتو مدة دون طبعا نقطة هي ضمير هي أي مدو هذو تكني هذا كهور مران سطرة دينا أين جرين سطرة دين النبي والشيخ مثل مؤخرة الرحل صورة أو ثلثي ذراع نقول ككر وكعسن هرت هذا أين هين أو هذا سطرة أيتو حاجة قدم بيا أي مرتو سلاد دي واتفاق إني برينين لكن هذا سطرة لهين oo ay ku hormarta saddexdaas gooynaya buu nabigu عليه السلام marka gooyntii baa la isku khilaaf culimada qaarkood marka maxay dhaheen waa xaqiiqo oo salaadii way buraysaa oo way gooynaysaa bimaana tabdul salaadii way buraysaa ayay culimada qaarkood yiraahdeen Ahmed bin Hanbal wuxuu yiri raxmatullaahi ta'ala alayhi sawo ayga madow wuu gooynayaa اللهم صل على محمد يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء بول إمام أحمد وحيري أيقو إساقو قوينيا لكن هويني هدي كهرمرت إني سلادي كابوري أما الضمير هدو كهرمر إني سلادي كابوري قلبي غيغا وحبا كتيري والحديث كان هكو سو أرورتي وحديث كان النبي هيجي هدو قويني هدي سترة أذن لهيني لكن haweenayda iyo dameerka fi qalbi shay buu yiri markaas culimadu way fasireen hadalka sheekha waxay yiraahdeen wuxuu u jeedaa ayga isaga wax ruqsaynaya ayga madow hortaada inuu maro lama hayo oo xadiidkan ka hor imanaya ama haweenay inay hortaada marto ama dameer inuu hortaada maro ahadiid kala ku soo aroortay saadarteed buu leeyahay labada iyaga shaki ba iga jira maxaa yeelay Aisha waxay warisay إني تري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت تري النبي مركو تكني هبينكي هرتيس أيان سدا أجد بنانجري معترضة سدا سمد أجد بن أيان هانجري مركو النبي تكني هبينكي isaga iyo qiblada ayaan u dhaxayn jiray oo saa ugu dhaxayn jiray teena guri yartay la soo marka uu salaatul leylka dhamaysto witirka ugu dambeeyay inuu tukado uu doonayo ayuu itoosin jiray markaas aan witirka tukan jiray xadiidka marka saxiixul muslim baa wari 512 lambarkiisa way hadaa doonayso tayib marka xadiidkaasi muxuu ina tusinayaa haweenay
inayna salaad goynaynin maxaa yeelay habeenkii oo dhan buu nabigu tukan jiray iyadoo caaisha ay hortiisa ay gudbantahay. dameerkana wuxuu sheekhu u yidhi Axmed bin Xambal shay baa qalbigayga ku jira. ibnu cabaas xadiiثuu wariya maxaa ku soo arooray aqbaltu raakiban calaa ataanin anoo dameer saaran dhadig ayaan soo qaabilay wa ana yowmaidin qad naahaztu alixtilaama anoo inaan buluuqo oon qaan gaadho u dhow wa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama yusallii binnaasi biminan nabiga oo mina dadka ku tukinaya ayaan soo qaabilay anoo dameer saaran fa marartu bayna yaday safi safkii hortiisaan anoo dameertii saaran maray fa nasaltu markaan maray ayaan deedna ka degay fa arsaltu lataana dameertii dhadigayd baan sii daayey tartacu yacni ha daaqdee wa dakhaltu fi safi markaasaan safkii galay falam yunkir daalika calaya axadun cidina iguma inkirinoo war dameertu salaaday naga goyni maxaad noo hormarisay cidina ma odhanin. markuu Axmed bin Xambal yidhi raxmatullaahi tacaala calayhi wa fii qalbii min alximaari walmar'ati shay-un axaadiistaasuu u jeeday yidhaahdeen culimmadu oo ay ku fasireen. ayib culimada kale jumhuurtii marka ka waran Axmed bin Xambal saasuu u kala qaaday oo wuxuu yihi ayga madow haa ama dameerta iyo haweenayda iyaga fiihi shay. ayib laakiin culimadii kale ka waran imaamu shaafici imaamu maalik abu xaniifa iyo jumhuur lculamaa maxay qabaan oo min asalaf walkhalaf laa tabdulu salaatu bimuruuri shayin min haaulaai salaadu ma burayso ay iyo dameer iyo kulli hadday ku hormaraan walaa min gayrihim wax kale xitaa hadduu ku hormaro xayawaan kale xitaa noocu doonaba ha noqde. xadiidkan marka maxay culimmadu ay ku awileen waxay yidhahdeen xadiidku wuxuu ka hadlayaa goynta la sheegay waxa weeye naqsu salaati lishughli lqalbi bihadihi alashyaa salaadii baa nusqaamaysaa loo jeedaa oo khushuucii baa kaa yaraanaya. haweeney ordayso hadday hortaada marta iyo haddii dameer uu hortaada mara iyo wuu qaab daran yahay yacni qalbigaaga ku shuqloomaya markaa salaadii baa kaa nusqaamaysa saasaa laga wadaayo khushuucii bay goynaysaa laakiin salaadii bay goynaysaa ma qalbigii xaadirka ahaa ee ilaahay qalbiga aad ku hayseed u tukanaysay ayaa go-aya oo markaa deedna khushuucii baa go-aya saasaa loo jeedaya salaadii baa go-aysa ma aha ayay culimadu yacni ayay yidhaahdeen saasay ku fasireen. aan kugu celiya xadiidka lafdigiisa وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضع وحا قوينيا صلاة الرجل نينك صلاة ديسا المسلم مسلم إذا لم يكن مركا المسلم ويسي عدينيسا نينك المسلم كاين صلاة ديسا كورن كاسي دي صلاة بمالوي ما قرأت إذا لم يكن هدونا هين بين يدي هرت يعني الصلاة ديسا ما صح يسوي إذا لم يكن هدونا هين بين يدي هرتيسا مثل مؤخرة الرحل ررك xaggiisa dambe oo kale yacni neefka marka kabaalaha la saaro labada kabaalee dambe saa uga taaganaysaa isu weydaarsan reebaadiyaha garane ee dhabarka saa loo saaraya kaasoo kale wey. youtube-kana haddaad ku qorto muxuu ahaa ee googlaha uu kuu soo saaraya mu'akharatu raxli haddaad ku qorto. almar'atu baa goynaysa walximaaru dameerka haddii sutrada aadan haysanin walkalbul aswadu iyo ayga madow waxaan ka yaabay gaalada ayga madow ayada way ka jecel yihiin oo qaarkood waxay nagu yidhahdeen yani sidii inuu ka fiican yahay oo uga lacag badan yahay xitaa halkana waxaa la yidhi aygii madoobaa dhib gaaraa lagu sheegay alxadiid iqra' ilxadiid wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka alkalbu laswadu shaydaanun ayga madow waa shaydaan waxay gaaladu ku jeclaatay ilan wax kastoo shaydaana gaal waa jecel yahay. akhrajahu xadiidka waxaa soo saaray muslim walahu walimuslim waxaa u sugnaaday can abi hurayrata naxwuhu xadiidkan oo kale duuna alkelbi kelbi laakiin uusan ku jirin. waynagayni laakiin riwaayada oo muslim ku qoran markaan eegnay yani kelbigu wuu ku jiraa oo waxaa ku qoran yaqdacu salaata almar'atu walximaaru walkalbu wayaqi dalika mithlu mu'khirati raxli laakiin buluuqulmaraamka sidan baa ku qoran oo waxaa ku qoran duuna alkelbi yani ayaa ku qoran riwaayada muslim taasuu ku qoran. wali abi daawuud wanasaa'i waxaa u sugnaado can ibni cabaasin ay ka wariyeen xadiidkii hore abi dar baa wariyay iyagu daawuud abi daawuud iyo nasaa'i can ibni cabaasin waxay ka wariyeen radia allahu canhuma ibnu cabaas iyo aabihiiba ilaahay raalliha ka noqde naxwuhu xadiidkaas oo kale xadiidka abidar oo kale duuna aakhirihi aakhirkiisa ayna la soconin. aakhirku waa kee xadiidka abudar dib u eeg
xadiidka Abu Dar maxaa ugu dambeeya alkalbu laswadu shaytaanun intaasaa ugu dambaysa. marka intaasaa loo jeedaa, intaasi kuma jirto. Abu Daawud iyo Nasai markay Cabdullaahi bin Cabaas ay ka wariyeen intaa iyada kuma jirto. waqayada faacilka Abu Daawud wuxuu ku qeyday almar'ata bilxaa'idi buu ku qeyday markuu xadiidka warinayay oo wuxuu yidhi yaqdacu salaata almar'atu alxaa'idu walkalbu. marka haweeneyda caadada leh marka way ka dhib badan tahay miyaa tan aan caadada lahayn? maxaa salaada yani mid caadada iyo mid aan caado lahayn? xadiidka saasaa ku soo aroortay. wax kastoo sunnada nabiga ku soo aroortana cala ra'si walcayn waa inaad tiraa, qalbigaagu waa inuu aqbalo wixii nabiga xaggiisa ka yimaada calayhi salaatu wasalaam. xikmada adigu ama fahan ama ha fahmin, waa inayna haweeneydii ayna odhanin oo maxay tahay dhibka haweeneyda caadada leh, yani waa inayna boodin oo waxaa ma jira ayna odhanin oo yani diinta ayna kaga bixin. wixii nabigu yidhaah ama ayna bidca ku noqonin. wixii nabigu yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam maxay carabtu tidhaha cala ra'si walcayn, bimacnaa waan aqbalay, waan qaatay wixii nebi maxamed xaggiisa ka yimaada calayhi salaatu wasalaam. marka xadiidka xukunkiisa waa inagii ka sheekaynay. allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed iyo culimadu sa isugu khilaafeen. wa can abi saciid alkhudriy radia allahu canhu qaal, saxaabiga waxaa laga wariyey inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, suubanuhu wuxuu yidhi idaa sallaa hadduu tukada axadukum midkiin ilaa shayin shayga oo yasturuhu asturaya min annaasi ka asturaya, oo fa araada uu doono axadun axad an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi hortiisa. marka bayna yadayhi maxaan ku fasiraynaa? hortiisa, amaamahu. laakiin hadda lafdiga maxaa la cabiray? bayna yadayhi, labadiisa gacmood hortooda. ma labada gacmood keliya? maya, isaga hortiisa. yani waa min tacbiiri اljuz'i wa iraadati اlkulli, isagoo dhan baa loo jeedaa, bimacnaa amaamahu baa loo jeedaa. khali baalak. fa araada axadun an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi hortiisa, inuu gudbo hadduu qof doono, falyadfachu ha iska dafciyo, falyadfachu ha reebo, ha u diido inuu hortiisa maro. fain abaa hadduu diido falyuqaatilhu ha la dagaalamo, fainamaa huwa shayطaanu, kaasi waa shayطaan. mutafaqu calayhi, xadiidka bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay. wa fii riwaayatin oo muslim uu wariyo gooni u ah, faina macahu, ninkaa qofka tukanaya horma isagiyo sutradiisa kala dhex maraya, faina macahu waxaa la jira alqariina shayطaan. faina alqariina macahu, shaydaan baa maciisa ahe, shaydaan baa la jira ee kol hadduu isku qaaday qofkiiyo tukanaya ha iska celiya ayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. ayib, haddaad xusuusato baabkii xadiidkii ugu horreeyay markaan ka hadlaynay, waxaan nidhi baabu sutrati baan ka hadlaynay. baabu sutrati marka laga hadlayo 3 xugun baa 4 shay baa muhiima inaad qalbiga yani aad ku hayso, oo markiina aan ka dhawaajinay. shayga koowaad inay sunno tahay sutra inaad samaysato. shayga labaad sutrada horteeda in la maro markii shuruudeedii la helo xaaraam inay tahay, oo xadiidkii u horreeyay yani ayaa inoo sheegay inay xaaraam tahay. haddaad xusuusato waa 2. ta saddexaad qofka in la iska dafciyo, dafcintaa xukunkeeda. 3daa meeshii ayaa imanaysa. marka mid waad ogaatay xukunkeedii. ayib, sutradu ma waajibbaa mise waa sunno? waa sunno weeye, ee waajib maaha. oo sutra la-aan qofku hadduu tukado salaadiisu way asaxaysaa. taa xukunkeedii oo sutradu waa sunnadii nabiga, waa fiicantaa in lala yimaado si khushuuci salaadu waxaa hortaada maraya uuna salaada khushuuceedii u goynin. sutrada xukunkeedii waa kaa, waa sunne, waajib ma aha. oo sutra haddaadan samaynin salaadii way asaxaysaa, laakiin waa sunnadii nabiga, way fiican tahay. 2, qof sutradii shuruudii markii laga hela aan u sheegnay, hortiisa isagiyo sutrada in la kala dhex maro qofka tukanaya, xukunkeedu maa maxay? xaraam weeye, haddii shuruudii la hela aan soo sheegnay. taana iyadana dafcinta ka waran, marka qofkii in layska dafciyo xukunkeeda ma waajibbaa mise waa sunne? sunno weeye, waajib ma aha. hadduu aad iska dayso hortaada ha maree kuma dembaabaysid, dembi kaama soo gaadhayo. laakiin waa sunne, oo iyadana inaad dafciso. isaga waa xaaraam inuu hortaada maro, laakiin adigu inaad iska reebto waa sunne. weliba goormay tahay inaad dafciso? hadduu yahay qaangaadh ama ilmo yaroo sabiya hadduu yahay, inaad dafciso ma aha. oo maaragtay maxaa yeele hadduu wax gaadho waa lagu haystaa,
maakiin qof oo qaangaadha haddaa intaad iska dafcisood gacanta u dhigto uu yara maaragtay uu dhulka ku dhaco kalo si tartiiba dee maaha inaad gacanta ku dhufatee ama uu naxo oo kale oo wax ku yimaado adi lagu raacan maayo maxaa yeeleen wax sharcigu fuliye wax sharcigu yidhi ayaad samaysay ama culimmadu waxay ka soo reebeen hadduuna qaangaadh ahayn hadduuna mukallaf ahayn marka maxaa soo galaysa ilmo yaroo gurguuranayo oo kale ama ilmo yaroo dee weli aan qaangaadhin iyo mid majnuunoo waalan labada midna mukallaf ma aha ama oday dee xusuustii ka tagtay sida majnuun oo kale ayaa hortaada maray kuwaasoo kale ma aha dafcinta kuma jiraan yacni inaad iska dafciso marka waa sunno weeyaan laakiin haddii sutrada aad ka fog tahay 3 dhudhun marka ciribtaada laga tiriye iyo iyada afkeeda haddii 3 dhudhun aad u kala fog tihiin oo ay kaa fog tahay cidda hortaada maraysa xaq uma lihid inaad celiso in hortaada la marana markaa xaaraan ma aha oo adiga ciribtaada ilaa 3 dhudhun in u jirta in la maro markaa xaaraan ma aha haddii sutradu ay yar tahayna oo sajaayad yar ay tahay sajaayadda wixii xaggaa ka oo dhan waa la mari karaa intan sajaayadda aad fidsatay intaa unbaa xaq yani aad u leedahay oo aan la mari karin allahuma salli calaa maxamed marka xukunkii waa sida mariddu waa xaaraan celintu waa sunni ee waajib ma aha qofkii yani inaad aad iska celiso allahuma salli calaa okay falyuqaatilhu macnaheedu marka maa maxay ma dhabbaa oo malala diriraya ilan lafdigu hadda wuxuu tusinayaa falyuqaatilhu markii hore maxaa la yidhi xadiidka sidaa u eg fain araada an yajtaaza bayna yadayhi falyadfachu hadduu doono inuu hortiisa qof maro ha reebo oo ishaaraha ku reebay ka dhigantay haw ishaaro oo sidaa ha yidhaah markaasaa muxuu nabigu raaciyey calayhi salaatu wasalaam fain abaa falyuqaatilhu hadduu isku soo qaado ha la dagaalamo marka taa hore la geray falyadfachu ha reebo haw yaro ishaaro inuuna hortiisa marin gacanta saa ugu ishaaro laakiin fain abaa hadduu diido falyuqaatilhu ma ha la dagaalamaa ujeeddada iyo hadafka sutrada laga lahaa maxay ahayd waxay ahayd khushuuca salaada inayna goynin oo qofkii khushuuciisa uuna ka kala goyn okay haddii la dagaalan meeshii hadduu yimid ka waran marka miyayna kasii dareen falyuqaatilhu say noqonaysa saa darteed culimmadu waxay yidhaahdeen markay fasirayeen ibnu xajar casqalaani raxmatullaahi tacaala caleyh fatxulbaariga xadiidka markuu fasirayay muxuu yidhi falyuqaatilhu ay yaziidu fii dafcihi athaani ashadda min alawali markii hore saa uun ha ugu ishaaro markan dambena ha sii yaro kordhiyo sidaa ha yidhaahdo dagaal meesha ma jiro falyuqaatilhu bimacnaa falyazid ha ziyaadiyo reebidii oo sidaa ha yidhaahdo ee ma jiro waxay culimmadu marka ay yidhaahdeen wa ajmacuu calaa annahu laa yalzamuhu an yuqaatilahu bisilaax hub inuu kula dagaalamo laasimkuma aha maxaa yeeley waa limukhaalafati dalika liqaacidati aliqbaali cala asalaati walishtigaali biha walkhushuuci fiiha salaad ku jirid baa meesha ka baxaysa nin dagaalama miyuu salaad ku jira saa darteed macnihii ma aha la dagaalama ayay yidhaahdeen ayib bayhaqi wuxuu wariyey oo imaamu shaafici ka wariyey wa naqala albayhaqiyu can shaaficiyi markuu sharxaya falyuqaatilhu wuxuu yihi imaamu shaafici bayhaqi baa ka warinaya imaamu shaafici raxmatullaahi tacaala caleyh laakiin marka imaamu shaafici la yidhaah waa inaad qadarkiisa ogaato inuu yahay imaamu lmadhab madhabka shaafici ee laysku xukumo intaasoo milyaar oo muslima ay isku dhaqmaan madhabkiisi inuu yahay waa inaad ka soo qaadin yani dictor wax qorqoray oo kale iyo wadaad waayahan dambe yimid oo hebel la iska yidhaahdo internetka caan ku noqda iyo sidaa ha u fahmin wa naqala albayhaqiyu bayhaqi wuxuu soo raray oo muxaditha can shaaficiyi ana almuraada bilmuqaatalati dafcun ashaddu min adafci alawal imaamu shaafici maxaa laga wariyey oo bayhaqi uu ka soo wariyey muqaatalada falyuqaatilhu macnaheedu waxaa weeye bimacnaa dafcun ashaddu min adafci alawali yacni marka hore saa ha ugu ishaaro marka dambena in kasii badan saasaa loo jeedaa asxaabu shaafici waxay yidhaahdeen markay masaladeen ka hadlayeen yarudduhu biashali lwujuuh sida ugu sahlan ayuu ku celin tartiib ah qaarkood baa isagoo salaada ku jira cadhoonayo falyuqaatilhu yacno si ayna culimmadu ku fasirin u qaatay walciyaadu billah isagoo salaad ku jira oo laga yaababa inuu yidhah waa jaanis nabigaa yidhi la dagaalamay waa inaad gafuurka ku dhufato walciyaadu billah marka culimmadu maxay yidhaahdeen
يرده وقال أصحاب الشافعي يرده هذا كان أخرنا وحا قري ابن حجر عسقلاني فتح الباري حديث كالشرح حيسة أيوك قرية هذا دونيس. وقال أصحاب الشافعي يرده بأسهل الوجوه سيدا أقول سهلا ساسو يرى أرانيا فإن أبى فبأشد مهدود دي سيدا سيكا يرى عدك يسا أرانيا مركا وحيدهم ولو أدى إلى قتله ولو دلكيسا ومركا فلو قتل فلا شيء عليه هدو مركا أقول أنت مثلا وون حيو كلا سوقات ما هي يعني ولدك علم يا محايل صلاة ويبوريسا صار لك موضوع يعني هدو أقول أنت إن كيس واحد كستار دعي كره إلا أنت كقار كيبا وحالك يا وإن عذر رقبان أو أنتو نحبا وقفك ويسكت أنتو فلو قتل فلا شيء عليه ريبي دا أساوي ريبي هدو أقول أنتو فلا يعني مقلق ماله محايل لأن الشارع أباح له مقاتلته والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها شافعية صداقة يعني إنونا يعني أونا مكدبين. المهم لو مجد الدقال يدل لكن هدود لما شتي معته مثلا وسيونو الانتساس يعني أيال لك وضعهم marka xukunku muxuu yahay marka tukanayso sutra derbi aad samaysata ama tir dafcinta xukunkeedu ma maxay ma waajib hadaan iska daaya ka waran waajib ma aha muxuu yiri imaam Nawawi waa sunna balagaysa hada imaam Nawawi wuxuu yiri وقال النووي maxaan imaam Nawawi u leenahay huwa saaxib almadhab madhabka imaam Shaafici يعني ninka boorka ka jafay weeye kitaabka minhaajka la yiraahdo inta badan isaga iyo shuraaxdiisa la adeegsado iyo sheekha qoray weeye sahih muslim kana sharx marka xadiidka sharxiisa muxuu ku yiri وقال النووي hadalkan waxa ibn Hajar baa soo warinaya Asqalani xadiidka sharxiisa وقال النووي imaam Nawawi wuxuu yiri اللهم صل على محمد وقال النووي ابن حجر بهذا الكوت لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع ريبدا قفك هرت هذا مرية أدي السطر هذا كلا نحمرية ريبدا الريبيو ها أحد علماء المسلمين تكمل وواجب يري مؤجب الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه أنكو علي وقال النووي لا أعلم أحدا من الفقهاء قفز هذا اللي متوني أحد فقهاء كمذا قال بوجوب هذا الدفع بل صرح أصحابنا أيها الإمام النووي أصحاب تنظروا حي عديين بأنه مندوب إنه يهي السنة واجب أونهين يعني أي عديين مركز عدينا ابن حجر عسقلاني أيها كذب التقي وهذا الكيس وذي ابن حجر عسقلاني بايري وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر قلد ظاهرية اللي يراه ها وأفرت مذهب مدنا آنهين ظاهر كقبصده كدقة ظاهرية دا وحي لهم واجب فكأن الشيخ مركو إمام نووي لا أعلم أحدا من الفقهاء فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه شيخ إنونا كنا قرنين هذا القضية أونا صوت على عنن يهدعي كرت أو لم يعتد بخلافهم أما خلاف كوضو أنا وحبك السوق قادين أو خلاف الآن وكسوق قادو هذا الكوضو قيمة مالي لبدا ميد أمبوكا وذا إيك إمام فتح الباري ابن حجر عسقلاني مرك إمام نووي وردين أيو هذا سوء أرانا إيك يعني سوء احترامي محويلي فكأن الشيخ ابن حجر فتح الباري قلنا قون كرتها شيخ هو إساقو مركو يري لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع مركو ابن حجر يري فكأن الشيخ وهذا يسوى ابن حجر إمام نووي لم يراجع كلامهم فيه هذا الكود أن سوء غانين يد مودا أو لم يعتد بخلافهم أما هذا الكود وحبيون كسوق قادين لبضا وامدون شيخة مركو يري ما دام الظاهرية أي سيدان قبان ها إنه هذا الكود مراجعين إنه يعني أونا مركا أين كحاضر سنين إيه إنه أجي هاي وهذا الكود وحبا أونا كسوقات ما دام المسلمين تي كلا إيه مذاهبتي معتبر كأهيد إيه وحكا سوقات كلا هيد إسقوط الراعين لبضع هو عم بدون بول مركا قاب كاس أي آداب تاس أي الشيخ مركو الشيخ ردين يعني أي أردين جري. طيب حديث النبي مركا علماء ما حيكون فسرين فإنما هو شيطان لفظ كاس waxay ku fasireen ninkii meesha maraya waa shaytaan baa leeyahay
marka shaytaankana waxaan ognahay ma shaydaan dhab ah culimadu waxay ku fasireen fa inamaa huwa shaytaanun ay ficluhu ficlu shaytaani falkan uu sameeyaa fal shaydaana oo qofka tukanayay iyo sutradiisii uu kala dhex maray uu isku soo qaaday limaada liannahu abaa ila tashwiisha cala almusalli inuu musalliga tashuush geliyo mooyaan wax kaluu diido uu isku soo qaaday marka hore loo digay waa gar oo dee muuna ogeyn uu iska socday laakiin hadduu isku sii qaado ficilkiisaasi waa ficlu shaydaan oo dee waa tashwiish ayuu sameeyey saasay dhaheen ee ma aha waa shaydaan maxaa yeeley waaba qof tukado masaajidka toogo oo khudbada dhegeysanaya oo muslima ee shaydaan mehe falkiisa fal shaydaana saas yacni ayaa loo jeedaa marka qofka oo xadgudba ee jinni ee insiga ah shaydaan yacni waa la odhan karaa oo qur-aanka way ku soo aroortay مثل شياطين الإنس والجن يعني قرآن يعني أيا كسو أرورتي اللهم صل أو قفكي دين تكفد نينا يدتك أوكله مركا الشيطان والله أوران كره لكن معنيه ما شيطان كي قال كهوي سدا يعني لو متجيدو أو حكمكو معاني دا إسكاله أسماء دا إسكاله مقعن أو الشيطان ليلي يعني حكمكي شيطان ما قادنيو ها إنه شيطان قال يهي oo lacnada ilaahay ku dhacday xukunka ma qaadanayo ee maxaa loo jeedaa yani waxa weeye ficilhu waa ficlu shaydaan asaas yani ayaa loo jeedaa culimada qaarkood halkaa waxay ka qaateen oo ay kala soo baxeen fa inamaa huwa shaydaanunta falyuqaatilhudi macnaha inuuna dagaal ahayn fa inamaa huwa shaydaanun baa ina tusinaysay dheheen maxaa yeelay kol hadduu nabigu shaydaan uu ku tilmaamay shaydaanka see la dagaalankiisu waa sidee iska reebidiisu waa sidee shaydaanka la dagaalankiisu waxaa weeye ilaahayoo laga magan galo qalbiga haddaad salaad ku jirto ilow shaydaanka iga qaba aad tidhaa oo magaca ilaahay iyo dikriga aad isku asturto shaydaanka aad iskaga difaacdo weeye saa darteed taasaaba ina tusinaysa in aynan muqaataladii dhabta ahayd inayna ahayn ilaan shaydaan kol haddii lagu fasiray shaydaan falkiisoo kale weeye haddii la yidhi shaydaan ilaahay baa laga magan galaa dee si kale loolama dagaalami karayo marka taasaaba ina tusinaysa dilka inaan loola jeedin dagaalkii dhabta ahaa ayay culimada qaarkeed sida sheekh la yidhaha ibnu abi jabre oo kale sidaas yani ayuu halkaa yani ayuu isagu ayuu kala baxay wadna marka xadiidka ku xiga wa can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam abi hureyre waxaa laga wariyey nabigu qaala inuu yidhi idaa sallaa axadukum midkiin markuu tukanayo idaa sallaa axadukum khali baalaka idaa sallaa bimacnaa idaa araada an yusalliya hadduu doono inuu tukado saasaa laga wadaa markuu salaada kale lagama wado idaa sallaa axadukum midkiin inuu tukado hadduu doono araada an yusalliya falyajcal ha yeelo tilqaa'a wajhihi shay-an wejigiisa qaabilkiisa shay uu isku astura ha yeelo مثلا دربي أو كلا تير أو كلا أو قطن صدا أو كلا كرسي أو كلا ساس أو كلا شيئا بالغ فإن لم يجد هدون هلين فلينصب حق قطن صدا عسن أول كساه قطن صدا يعني تكي أو كلي فإن لم يكن هدين جيرين أو هلين أو أين أسهلنان فليخضها حريق دو خضا حريقت مركا حريق داس بالعرض سداها وحريقه وعربتيسي إساقا إنا صدح دودون وفوقين ama sidaa dheerar ha u xariiqo oo deedna afkeeda ilaa meeshu ku sujuudaya ha ku jeebto maaragta saas oo kale labadaba way noqon kartaa midig iyo bidix midku doona uu iska marin karo thumma laa yaduruhu buuri nabiga calayhi salaatu salaam ma dhibayo man mara duulkii mara bayna yaday hortiisa arrintaa hadduu sameeyo oo wuxuu awoodo uu sameeyo walow sajaayid uu fidsadaba allah ka dhigay wixii hortiisa mara ma dhibay marka iyada akhrajahu xadiidka axmed baa soo saaro wariyey iyo wabnu maaja wasaxaxahu waxaa saxiix yeelay ibnu xibaan walam yusib buuri ibnu xajar ma asiibin man zacama duulka sheegtay annahu mudaribun xadiidku inuu mudarib yahay daciif bal huwa xasanun yani xadiidka iskhilaafsan matnigiisa ama sanadkiisa ayaa la yidhaha mudarib بل هو ضعيف مركا نوع كميدا نوعية ضعيف بل هو حسن حديثك هو حسن أيو يري مركا شرح هذا هوران سو مرني waxa sutrada noqonaya oo horay xadiidkan hadda wuu caamimay khali baalak sida matniga u eg falyajcal
tilqaa'a wajhihi shay-an buuri shay wejigiisa ha yeelo shay un wuxuu doono xadiidkani saasuu yidhi laakiin axaadiid hore maxaan ku soo marnay bimu'khirati raxli bimu'khirati raxli inuu nabigu ku xadeeyey rarka labadiisa kabaalee dambe dhabarka saa loo saarayo culimadu ay ku qiyaaseen dhudhun 3 meelood loo dhigay labadii yani casu dhiraac bay yidhaahdaan yani cadmu dhiraac dhudhunka laftiisan saa u dheer intaas oo dhudhunka dee 3 meelood laba ah dhudhunka ileen macal faraha ayaa dhudhunkii taas yani ayay culimadu marka axaadiista yufasiru bacduhaa bacdan barkeed barka kale ayuu fasirayaa marka xadiidkani waa caam oo wuxuu yidhi falyajcal tilqaa'a wajhi shay-an walow koofiyadda uu qabo oo hortiisa uu saa u dhigto saas yani ayaynu marka qaar baa qaatay kan laakiin sax ma ah maxaa yeeley axaadiistii horeen soo marnay ayuu nabigu ku xadeeyey markii la weydiiyey oo uu yidhi bimu'khirati raxli rarka xaggiisa dambe oo kale intaa in la eg marka xadiidkaasaa fasiraya kan shay-an yidhi khali baalaka yani ha khaldamin wadada culimadu mareen mar wadada culimadu ay ku fasireen ku fasir ra'yigaaga ha u adeegsanin وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوبانه وحويري لا يقطع الصلاة صلاة مقوية شيء وادرؤوا ريبا ما استطعتم يعني انت أبودان أخرجه أبو داود بحديث كوري وفي سنده ضعف يعني أياك الصغان طيب حديث كان مركب محوينة سنة يا ضعيف بهالنقطة صلاة وح قوينة يا إنه نجرين لكن قوينتا انتي اللي أوده إن اللي استاغو وحلا يسكو أسطره وادرؤوا ما استطعتم يعني إن هرت هذا لما رأينا ديدو يعني أضوح اسكو أسطرته لكن شيء ما قوينة يا النبي يجري لكن حديثكو ضعيف لكن جمهور العلماء maxay qaateen goyntu in laga wado goynta oo maaragtay khushuuca ay salaada burideeda aan laga wadin wayagii xadiidkii hore sidaa yaana ku fasiray xadiidkana daciif ha noqdee daahirkiisu muxuu ina tusinayaa salaada wax goynaya inuu jiro laa yaqdacu as-salaata shayna inuuna goynaynin wadra'uu mastadactum yani reeba intaad awoodaan oo bimacnaa sutra samaysto oo hortiinana yani yaan la marin nabigu yani yidhi calayhi salaatu wassalaam ma jiro yani wuu goynayaayo wuu burinayaayo salaada inaad soo celisaa waajib kugu noqonaysa sidaasi ma aha sida oo loo badan yahay cala alaqal jumhuur ulculamaa ay qabaan sidaa ma aha wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.